ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaan qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah doorashada Jubbaland oo waqtigeedii laga soo hormariyay iyo guddiga oo go'aan ka soo saaray. Axmed Cawad oo xog ka bixiya kulankii uu xajka kula yeeshay Muuse Biixi Cabdi. Wararkii ugu dambeeyay weerarkii Awdhaale iyo khasaaraha ka dhashay dowladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada mucaaradka oo heshiis la yaab leh oo qarsoodi ah gaaray. Amarka ra'iisul wasaare Khayre oo lagu sii daayay mas'uuliyiin musuqmaasuq ku eedeysnaa. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu eebedmo. Markaani u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownaa wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo doorashada Jubbaland ayaa sheegaya in isbedel lagu sameeyay jadwalkii doorashada madaxweynaha iyo midda gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi. Warqad ka soo baxday guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka la qaban doono 14 bishani oo ku beegan maalin Sabti ah. Sidoo kale qoraalkani ayaa lagu sheegay in maanta oo 14 Agoosto ay bilaaban doonto diiwaangelinta musharaxiinta kadib doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 19 bishani oo ku beegan maalin Isniin ah. Doorashadani ayaa balankeedu ahayd in la qabto 24 bishani balse waxaa haatan laga soo hormariyay waqtigaasi. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyada oo weli isqabqabsi ka jiro doorashada Jubbaland, taas oo keentay in musharaxiinta mucaaradka ay sameystaan guddi gaar ah iyo xildhibaano ka soo horjeeda kuwa uu madaxweyne Axmed Madoobe doortay. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xooggan oo barqanimadii maanta ka dhacay degmada Awdhaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Weerarka oo ku bilowday ismiidaamin ayaa waxaa dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen gudaha degmadaasi. qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiya walxaha qarxa ayaa waxay xigay dagaalka foolka fool ah u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday. In ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxaasi iyo dagaalkii xigay sida ay caasimada online u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay. Dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa Gacal Cabdulle oo ahaa sawir qaade ka tirsan idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Xaaladda ayaa haatan kacsan balse waxaa weli gacanta ku haya Awdhaale ciidamada dowladda oo toddobaadkii hore Al-Shabaab kala wareegay degmadaasi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa amray in la sii daayo ilaa 5 qof oo ku eedeysan musuqmaasuq xatooyo xoolo dadweyne, kuwaasi oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku jiray xabsiga dhexe. Mas'uuliyiinta la sii daayay waxaa ku jiray madaxa canshuurta qaadka ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdimaalik Yuusuf iyo 4 qof oo kale oo la shaqaynaysay. Dadkani ayaa toddobaadyo ka hor la soo xiray kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq xoog leh oo la sheegay in ay ka geysteen canshuurta qaadka ee garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Muddadii ay xirnaayeen waxay mar ka soo muuqdeen maxkamadda gobolka Banaadir, laakiin ma jirin xukun maxkamadeed oo ku dhacay, waxaana weli socota dooda eedeymahuda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dadkani qaarkood kula kulmay xafiiskiisa isaga oo ka dalbaday in ay u hoggaansamaan amarada dowladda isla markaana aysan qalad u arkin muddadii ay xirnaayeen. Caasimada online ayaa ogaatay in ra'iisul wasaare Khayre uu raggani ku qanciyay in aysan dib ugu laaban xafiisyadii ay markii hore joogeen oo ay ka warsugaan amarada kale ee soo bixi doona. Si gaar ah waxaa la sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu kulan gaar ah la qaatay Cabdimaalik Yuusuf, waxaana la sheegay in uu ku qanciyay in uusan bilaabin dagaal ka dhan ah xukuumadda maadaama idaacadiisa Shabeelle lagu yaqaano in ay barnaamijyo ka samayso shaqooyinka dowladda. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankii ay xajka kula qaateen wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Cawad ayaa sheegay in kulankaasi aan looga hadlin wax siyaasad la xiriira ama danaha labada dhinac. Sidoo kale wuxuu sheegay in kulanku uu ahaa mid saaxiibtinimo ah oo walaalo ku dhex maray dhulka barakeysan ee Sacuudiga. Aad ayaan ugu riyaaqay wada sheekaysiga saaxiibtinimo kaas oo aysan ku jirin wadaxaajoodka siyaasadeed oo aan ka yeelanay waxyaabaha la og yahay, ayuu yiri Wasiir Cawad. Kulanka dhex maray madaxweynaha maamulka Somaliland iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo si aad ah loo hadalheeyo ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ay yeeshaan labada dhinac tan iyo markii la doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxaa weli shaqo bilaabin guddigii badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka, kuwaasi oo ka koobnaa 11 xubnood 8 ka mid ah ay yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. guddigani oo 10kii bishii January markii lagu dhawaaqay laga dalbaday inay si degdeg ah tirakoob ugu sameeyaan hantida qaranka ee maqan iyo tan dadka gacanta ugu jirta isla markaana lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
ayaa ilaa hadda shaqo bilaabin, waxaana la sheegay in lagu amray in ay joojiyaan arrimaha loo diray. Guddigani ayaa waxaa guddoomiye u ahaa wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre, waxaana sidoo kale ka tirsan wasiirada maaliyadda, howlaha guud, dekedaha, amniga, arrimaha gudaha, shaqada iyo shaqaalaha, kalluumaysiga iyo guddoomiyihii ahna duqii Muqdisho marxuun Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Caasimada online ayaa ogaatay in guddigani markii horeba loo magacaabay in ay dagaal toos ah la galaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sidoo kale ah ganacsato maalqabeen ah kuwaasi oo ku ganacsada xukuumadda Khayre. Xildhibaanadani dartood loo magacaabay guddigani ayaa ku ganacsada dhul iyo guryo ka mid ah hantida maguurtada ah ee qaranka, waxaana la sheegay in markii dambe ay heshiis la galeen xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Khayre. Waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ahaa in xildhibaanada ay joojiyaan mucaaradnimada xukuumadda, abaabulka kicinta xildhibaanada mooshinka xukuumadda ka dhanka ah, iyo dhammaan wax kasta oo ka hor imaan kara danaha xukuumadda oo ay ku jirto ka hor imaanshiyaha sharciyada iyo xeerarka xukuumadda wadato. Haddii ay intaasi fuliyeen, yaa dhankooda loo ballan qaaday in laga joojiyo beegsiga dhulka ay degan yihiin iyo guryaha danta guud iyo sidoo kale curyaaminta ganacsigooda, iyada oo labada dhinac heshiisyadii ay galeen ay si rasmi ah ugu dhaqaaq galeen sida ay ogaatay Caasimada online. Mas-uul ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka mid ah guddigani ayaa Caasimada online u xaqiijiyey in heshiisyadani lagu kala saxiixday madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana ay ka soo hor yiraahdeen ka hor inta aysan la fariisan wakiilo ka socday xafiiska Khayre iyo kan madaxweynaha. Waxaa muuqata in aysan dhinacyada ku heshiin danta guud, balse ay ku heshiiyeen dana gaar ah, taas oo dhabarjab ku ah rajada dowladda Soomaaliya.